bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaasheeda qadarinta iyo qiimaha mudan loo kusoo dhawaada barnaamijka dhabka hadal oo alaaba aad ka daawataan tv-ga caalamiga ee calson t v. dhabka hadal waxa uu isugu jiraa dhowr faraac oo aan ugu talagalnay in aanu bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska africa iyo daafaha dunidaba aanu ugu soo gudbino arrimo muhiima oo aanu isleenahay waxtarkooda ayay leeyihiin. dhabka hadal wuxuu isugu jiraa dhowr xubnood san hore u sheegnay. xubinta koowaad waxaa la yidhaahdaa hiil iyo howl oo waxaanu ugu talagalnay in ummadda soomaaliyeed iyo deegaanadeedaba loogu hiiliyo oo waata soomaalidu tiraahdo meel how u baahan meel hiil u baahan how wax kama taro. xubinta labaad waxaa la yidhaahdaa camuuraha care edeg ama geeska africa. waxaynu kusoo qaadanaa iyaduna siyaasadda iyo baaxadega ka jira dhulka geeska africa. xubinteenna saddexaad waxaanu ugu magac darnay turaanturooyinka nolosha oo aynu kaga hadli doono nabadguurka ku dhacay dalka iyo deegaanka ummadda soomaaliyeed iyo hanaanka dhaqan iyo dhaqaale iyo isbedelada ku yimid iyo afkeena hooyo oo aynu inta badan u aragno in uu looli kasii dhacayo. qaybteena afaraad ee dhabka hadal waxaynu ugu magac darnay tabaalaha adduunka. tabaalaha adduunka waxaynu qudheeda kaga hadli doonaa burburka ku yimid wadamo badan oo caalamka ah, xag siyaasadeed iyo xag dhaqaale. dhanka kale saboolnimada oo sii laxaadsanaysa ayaan iyaduna kusoo qaadan doonaa. haddaba intaa kadib xubinteenna maanta aynu ugu talagalnay in aynu barnaamijkeena kusoo qaadano waxay noqon doontaa hiil iyo howl. waxaa inoo marti ah oo aad inta badan aad maaragtay tifiyada caalamiga ka daawateen xubin sare aqoon-yahan soomaaliyeed oo lagu magacaabo aadan jaamac kaahin ahna xubin ka tirsan guddiga ama sare ee xisbiga shaqaalaha wadankan ingiriiska. aadan marka hore kusoo dhawow calson t v iyo barnaamijka dhabka hadal. intaa kadib intaynu u gudagelin waxaanu maanta ka hadlayno waxaan doonayaa in yar bal in aynu araarteena kusoo yaro qaadano waxa aynu maanta halkan u fadhino inaynu kaga hadalno. waxaa qalinka iyo buugga aynu isu dul saarnay ama aynu u doonayno inaynu bulshada soomaaliyeed uga faa'iideyno inaynu maanta ka hadalno waxa la yidhaahdo 9 markab iyo saameynta ay geeska africa ku yeelan doonto. 9 markab oo ay soo iibsatay dowladda aynu jaarka nahay ee Ethiopia kuna xiran biyaha dekada magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti. intaynu markaa 9 markab iyo sababaha loo soo iibiyey iyo su'aalaheeda aynu gelin ayaanu doonaynaa in wax yar aynu dadka Soomaaliyeed dib u xasuusino arrimaha 9kaas la sii xiriira. sidaad la socotaan geeska africa waxaa soo maray duulaano iyo gabadfallo badan oo dhex maray qowmiyadaha ku nool geeska africa, gaar ahaan soomaalida oo ku wajahan dhinaca tigreega iyo soomaalida iyo axmaarada iyo soomaalida iyo oromada. dagaaladaas saddex geesoodka ah ama gulufyada colaadeed waxaa lagu tiriyaa kuwa dunida soo maray kuwii ugu dhiigbax iyo dhimasho badnaa. waxaa jiro damac fara badan oo ay boqortooyooyinkii dhulka Abyssinia ay mar walba ka lahaayeen dhulweynaha iyo dagaalada Soomaaliyeed. waxaa jiray arrimo badan oo ay mar walba ama ha noqoto badbaadin ama ha noqoto waxtar ama ha noqoto in ay gacan ka helaan bulshada ay caalamka ay mar walba ay yihiin dad ay dareenka wadaagaan ayay mar walba waxay u dirsanayeen kaalmooyin ku saleysan mid diimeed iyo mid dhaqaalaba. haddaba waxaa jirta markaynu ka soo qaadno ninkii la oran jiray Detros oo kale dhambaalo uu ku beerlaxoosanayay ummadda markaasi dunida ugu awoodda badneed oo ay ka tirsaneed dowladdii ingiriiska oo markaa ay hogaamiye ka ahayd naagtii la oran jiray Queen Victoria. waxaa jira Menelik II oo marar badan isku dayay in uu samaysto xad isaga uu leeyahay oo dhul badan oo Soomaaliyeed uu xadkiisa raaciyay sida Djibouti ilaa Berbera wixii ka soo hooseeyay ilaa reserve area dhulkaasi oo uu ku tilmaamay dhul asaga uu leeyahay. waxaa jiray ninkii la oran jiray Haile Selassie inuu in badan qaramada midoobay horteeda ka sheegay ama meelo badan uu ka yiri dadka Soomaaliyeed iyo dhulkoogaba aniga iskale, waxaana hantidooda iyo noloshoodaba ay ka mid yihiin hantidii awoowayaashay. marka dareenada noocaas ah iyo damaca nooca ah ma ahan mid dhamaaday. dagaalku wuxuu isu bedelay wajiyo badan ayuu soo maray, wuxuu maanta marayaa heerka siyaasadeed heerarka ugu sarreeyay. haddaba arrinteena haddaynu dib ugu soo noqono sababta keentay in 9 markab ee jamhuuriyadda federaalka Ethiopia soo iibsato iyadoo aanan dekad lahayn ayaanu maanta doonaynaa inaynu halkan ku falanqeyno anigoo markaa kusoo dhaweynaya mar labaad aqoon-yahan aadan jaamac kaahin.
aadan su-aasheeda koowaadan ku weydiinaya waxay tahay waa maxay arrimaha ka dambeeya soo iibsiga sagaalkaasi markab ee dagaal ee ku xiran biyaha magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti inagoo og dowladda Itoobiya inaysan maanta wax bad ah lahayn maxaad u malayn karaysaa arrintaasi maxaa ka dambeeya Faisal horta marka hore soo maasan tahay marka labaadna dee arrimaha saad u sheegtay waxa weeyaan waa arrimo muddo soo jiitamayay haddii aan marka ku noqdo si aad u sheegtayba waxaa jirtay inay soo jirtay dowladda Itoobiya 9 markab oo kasoo jirtay dowladda Chinaha 9 markab oo lagu qadaray lacagtooda ilaa 3 milyan oo dollar oo ay bixisay dowladda China laakiinse ay ku soo qaadatay amaah waxaan la soconaa markaasi in lagu daafuray markabtaas iyaga ah magaalada Jabuuti 23 May 2014 halkaas waliba ay dowladda Itoobiya martiqaad u fidisay rag ka tirsan maamulka Soomaalida oo halkaa iyaguna Soomaaliya jooga oo ay laftooda ka qayb qaatay furtaankii haddaba haddii aan ku soo noqdo su-aasha aad weydiisay ahayd maxaa u sababa 9 markab ee la keenay Jabuuti waxa weeyaan sababta ugu horeysa markii anigu aan ka soo xigtay oo aan ku sameeyay baaritaan badan qoraallo ay qortay jiradda loo yaqaano economy waxa ay sheegtay mar su'aalo badan la weydiiyey nin haysta shipping line ama qaybta badaha qaabilsan ee Itoobiya wuxuu ninkaasi ku dooday oo uu yidhi 3 sababood bay u doonayaan inay markabtaas helaan waa su'aal ku dhigay marka ugu horeysa wuxuu yidhi kharashka nagaga baxa maraakiibtaasi waxaa nagaga baxa badda alaabta ka soo qaadana waa qaali wuxuu ka soo qaatay tusaale wuxuu yidhi marka ka imanaya China ka imanaya Shiinaha ka imanaya Jabuuti imanaya inta ku baxaysa kharash iyo ka Jabuuti ka imanaya magaalada Addis Ababa la soo qaadayo waa isku lacag buu marka wuxuu yidhi macnaha xisaabtaas waa xisaab aad u culus oo fara badan si aan u yareyno markaasi waxaan u iibsanay markabtaasi inay hawshaasi ay naga caawiyaan marka ay alaabta u baahan noo soo qaadaan waxa kale uu yidhi waxa kale ay ujeedada kale tahay in marka ay soo socdaanna ay barats ama qoladan Soomaalida balcabadeeda ay ka ilaaliso qodobka labaad ee kale isaga uu carabka ku tilmaamay waxa uu yidhi waxaan u baahannahay bacdama Itoobiya ay baaxad weyn tahay inaanu isticmaalno jirad dekeda loo yaqaano Berbera iyo Boor Sudan iyo Lamu marka laga saaro Jabuuti macnaha waxaad fahmaysaa marka kala saarto in ninkii uu doonayo inuu isku garaaca laftooda dabadna marba qolba sicirka ugu dambeeya uu ka qaadan karo uu ka qaato oo marka ayagiina ay moodaan in la macaamilayo ujeedada kale ay tahay yani 4 dukaan oo furan oo kii jaban marba aad qaadanayso ama ujeedada leedahay ka fashanayso qodobka saddexaad ee kale ay ka leeyihiin arrintaasi waa arrin kale oo yarteedu uu sheegay oo ah inay abuuri doonaan 5,000 oo ciidan ah oo ay ku tababari doonaan meel loo yaqaano Baxradeyn oo ku taala biyo xadheenka weyn biyo fareenka loo yaqaano Lagtana Itoobiya ku yaala kaasi oo dhinaca xamaaradu ay digtaa halkaana lagu tababari doono wili ilaa 5,000 oo ciidan ah markii ninku la weydiiyay oo wili bad ma leedin maxaa ku tababaraysaana wuxuu lagu talagalay inay noqdaan officers ka shaqeeya ama saraakiil ka shaqeysa markabta caalamka oo ka caawiya sida Philippines iyo Sri Lanka ay hawsha u gasho kuwaas oo markaas lacag 250,000 oo milyan oo dollar soo gelin doona Itoobiya marka ujeedada ka leeyihiin markaas kulliba oo la sheegi doona laakiin sababaha ay sheegteen iyagu ay sababaha ay magacaabeen oo markaas ku doodayo ayaa kuwaas marka 5,000 lagu tababarayo Baxardaar saan la socono waxay ka mid tahay gobolka Axmaarada waana magaalo aad u qadiimi ah oo maaragtay xagga biyo xireenka saad sheegtay Lagtana agteeda ku yaala 5,000 meesha lagu tababarayo ma waxay sheegeen in ay ka howlgeli doonaan gudaha wadanka Itoobiya mise waxay sheegeen in ay ka howlgeli doonaan halka ay biyaha imika ku xiran yihiin maraakiibta walaarta arrinta wasaasad qarsan oo adiga lafta markaa hadlaysay waxaad soo xogtaa oo tiri majaraha Itoobiya ama siyaasadihii hore ay lahayd wuxuu ahaa inay badda mar wada qaataan oo adiga ku doodaya imika lahaa wuxuu yidhi waxaan doonay xasaas wuxuu yidhi xoog doonay Zeyla حتى تاريخيا واحد اللي حكوا دوضة حتى إنجليز كله دوضة إن السياسة صومالي قلبين أو إسكع علين كانوا لكن اللي هو بدرسي لا بالقرط اللي ممكن مرة والبا واحد دوني معناها إنه هنا من البضعة من ذاك لا وهذا صعدتها كل إنسان بقول له يسخن كي إن أي إرتريا معناها كحرودي
dalka Ethiopia ku go'day halkaasna waa isaan jirtay markii hore dowladda Ethiopia Masawa iyo Casab marka labada dekedood waayeen oo dagaalkii ka qarxay 1998 kadib ay markaa Ethiopia go'aansatay inaan rajo ka lahayn haba yaraatee inay isticmaasho xeebaha ku yaala dalka Eritrea oo markaana ay Djibouti xaggeeda ku noqotay haddaba su-aasha kale meesha taalla waxa weeyaan maxay okay taas waa kaaga baxaya kulli laakiin ujeedooyin kale aan ka hadlayay taas way kulli weli inagoo ku jirno su-aashii koowaad waxaad carabka ku dhufatay magaalada Berbera iyo magaalada Lamu Berbera waxay ka tirsan tahay gobolka waqooyi galbeed ee Soomaaliya Lamuna waxay ka tirsanaan jirtay sida taariikhiyan gobolka NFD ee dhulka Soomaaliyeed balse imika waxay ka tirsan tahay gobolka Coast la yiraahdo ee Kenya ku yaala maxay tahay marka ujeedada saad sheegtay waxa tiri inay isku dhuftaan baad tiri marka waxa cidda la isku dhufanaya ama waxa la isku dhufanayo maxay yihiin dadka aad u cadayso okay horta ujeedada kale waxa loo yaqaan shanta Soomaaliyeed guud ahaan barada eegto marka shanta Soomaaliyeed marka la eegana waxa weeyaan nimanka ujeedada leeyahay waxa weeyaan game ciyaaran oo qolada kale ay game ciyaaran oo qolada kale tusaan marka imika Lamu waxay ku taallaa gobolka loo yaqaan NFD ee barigii hore Soomaalidu ay Ethiopia ay qaadatay Kenya 1963 la wareejiyay waliba waxa kaga daran oo la yaab leh gobolka noocaasa ee badda lahaa xeebta lahaa markii ay Kenya qaadatay ee gacmaha ku dhigtay gobolkii loo yaqaan NFD oo hadda loo yaqaano waqooyi bari ee Kenya la baxday waxaa la yaab leh in laga jaray xeebtii oo dhan oo lagu wareejiyay carabta degta Mombasa oo loo bixiyay marka coastal line si markaas Soomaalida looga qaado xeebtaas oo dhanba marka Lamu horta macnaheedu waa taas ku soo noqon doona Berbera waa meel aad u istiraatiiji oo ka mid ah shanta Soomaaliyeed Somaliland waxa ka mid ah shanta Soomaalida hore Lamu waxa ka mid ah NFD gobolka loo yaqaanay Djibouti waa shanta Soomaalida ka mid ah la bixiyay marka waxaas oo dhan la soo qaado ujeedada kaliya waxa weeye markaasi inay Bor Sudan isticmaalaan oo Djibouti isticmaalaan oo Berbera isticmaalaan oo Lamu isticmaalaan macnaha waxa weeye markaa kii marba sicir ku leemaane inay kala qabtaan oo ay laftooda isku garaaco oo noqdaan dad aan macna u sameeyeen hadii la yiraahdo intaas si kaas diido in kala loo tagi karo waayay waan fahnay su-aasheedii labaad waxay noqonaysaa mudane aadan siyaasadda ku wajahan geeska Afrika soo iibsashada sagaalkaasi markab geeska Afrika sidaan la socono dadka degan waxa ugu badan waa ummadda Soomaaliyeed saad imika sheegtay shanta Soomaaliyeed dhulka way degan yihiin Djibouti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya intaba waa maxay marka arrimaha siyaasadeed ee ku wajahan soo iibsashada sagaalka markab ama carqaladaha cidda ay ku yihiin ama loo soo iibsanayo ma la oran karayaa geeska Afrika oo dhan arrintan way saameyn karaysaa waa runta Faisalow haddii aan iyo ku noqdo taariikhda waxaa la socotaa 1897 milixii labaad ee ninkii loo yaqaan Yobo oo markaas uu Tigray xukumi jiray boqor ahaa in dagaal badan ka dhaxeeyeen waqtiyadaas intii ka horeysay 1997 kadib markaa 1947 intaani uu ka qayb galay shirka milixii ku yaala Yurub ayaa markaa ay dhaxaadeen ka hor muddo ka horeysay waxa la dhaxaaday markaa Yurubiyanka oo ku yiri markaa Tigraygu idinku dagaalaminaya oo Tigraygu idinku la ujeesto dhinaca iyo Suudaan oo la dagaalama ninka qaaduu dhinaca Soomaaliya ujeesto oo cadow baa leediin iska jira halka wax ku saxay markaa wax loo yaqaan agreement conduct oo markaa ay ku heshiiyeen markaasi qowmiyadda loo yaqaan Tigrayga iyo qowmiyadda loo yaqaan Axmaarada waqtigaasi 1997 bay saxeen 1997 bay saxeen markaa inaan markaa khilaaf u dhaxaynin laakiin cadowga iska celiyaan mar labaad ma saxeeno markii ay Tigraygu qabsadeen xukunka Ethiopia 1992 ee dowladda Soomaaliya dhacday kadib markaana waxay dhacday khilaafaadka dhexdeena aan ka saarno meesha aan heshiino marka ujeedadu waxa weeyaan waa heshiis loo heshiiyey in bacdama dhulka Soomaalida ay hantiyeen oo waxbana looga daba tagin oo sida ay ku qaateen haddana bareen cusub oo ah in badii aan qaadano taas waxay keentay markaasi markii Soomaalida la arkay inay quwad jabtay babaaday oo kala jabeen oo ay laftooda ay iskhilaafsan yihiin bal doonaya inta ay iskhilaaf ku jiraan in laga faa'iisto oo ciidamada la tababarana waxay u badan tahay in la doonayo badda in ay adhow qaataan sababta way iyaga dadka isku jeeda oo iskhilaafsan waxaan la soconaa inay qusulada geysteen dowladda imika Ethiopia ay qusulada fadhiyaan Garowe ay fadhiyaan Hargeysa ay Kismaayo fadhiyaan marka doonaya marka meel walba inay waxaan maalintu maqlaysay ugu dambeysay markuu Kismaayo ka hadlayay ninkii Ethiopia fadhiyay madaxda ahaa shirkii ugu dambeeyay ee laga qabanay Jubaland laga hadlayay markii uu hanjabay dadka ku yiri anigu waan goobjoog baan ka ahaa markii Soomaaliya la sameeyay waan joogay waxbaan ka dhisay waan taagnaa oo dadkii ra'yi ka bixinaan kamid ahaa buu yiri waxa kale oo sheegay Garowe markii lagu dhisay waxa kale oo sheegay maaragtay meesha loo yaqaano Kismaayo
marka inkastoo meelaha qaarkood uu ka been sheegay oo aanu joogin oo markaa ay Soomaaliland markaa kale waxa laga waqtigeeda inuu gacan ku lahaa oo ka been sheegay aanu joogin haddana uu sheeganaya inuu gacan ku leeyahay arrimaha ka socda meesha waxaa soo markaa soo geeyo waxa ku tusay markaas inuu keen doonayaan inay policy weyn ciyaaraan oo bacdaba dhulkii ay ku guuleysteen inay badin u jeestaan waayahay haddaanu taa intaa kaga gudubno waxaa jira waxa loo yaqaano sicir barar sicir bararkaasoo inta badan kusoo noqdo dagaalada Soomaalida ama dhammaan deegaanada Soomaaliyeed waxaynu badanaa aragnaa dhaqaalihii oo mararka qaarkood hoos u dhacay lacagihii dollarka mar kor u kacay mar hoos u dhacay maciishadii iyo oo isbedeshay sicir bararkaasi waxa weeyaan inkastoo aan ognahay in dadka Soomaaliyeed ay isku xiran yihiin shanta Soomaaliyeed dadka degan oo dhan ayaa waxay isugu xiran yihiin qaab dhaqaale iyo qaab dhaqan marka sicir bararkaasi soo noqonayo inta badan hadeenu dhinaca dhaqaalaha u galno maxaad u maleyn karaysaa waxyaabaha sababaya horsiisa marka laga hadlayo sicir bararka maxaa keenay su'aashu waxa weeye maxaa keenay sicir bararka waxaad maalin walba maqlaysaa Soomaaliya oo $100 waxba goyn maayo lacag baa la diray waxba jari mayso bargo lacagtu qiimo lahayd maxaa horta marka hore lacagta qiimo tiray waxaan loo oran karaa laba qaybood baa ayaa la soo qaadan karaa mid weyn horta lacagtii Soomaaliya ma jirto lacagta kale xataa lagu isticmaalo Soomaaliland lacag la tirasay maaha oo haddii dibadda loo qaado la geeyo Dubai lacag la qaadanaya maaha dadku marka isticmaalaan dollar ba isticmaalaan kaliya horta waddankii wadan lacag muxtarif oo laga isticmaalaa ma jirto dadkii marka dollar ba isticmaalaan weyn halka marka dadkii currency ama lacag ay leeyihiin oo rasmi oo caalamka ku shaqeysa waqti hadalka ma jirto waa kow taas way keenaysaa sicir bararka tan labaad ee kale waxaa keenaya marka waxa adigu aad soo iibsanaysaa ay ka fara badan yihiin waxa adigu aad iibkeenayso waxaan ognahay Soomaaliya marka warshado ma laha beero badan oo shaqeeya ma jiro wax walba oo Soomaaliya la keenaba lacag adag baa lagu diraa oo dibadda loo geeyo baan waxa la mid tahay in wadankii lacagii taaliba la geenayo u meel laakiin wax ka soo noqonaya aan jirinba marka waxa la mid tahay macna foosto maran oo biyo lagu shubayo taas waxa ka mid tahay marka waxyaabaha sicir bararka keenay iyo waliba arrimo kale oo aan imika ka hadli doono qaybtan dhaqaalaha Itoobiya waayahay dadweynaha imika ku soo biiray daawashada barnaamijka waxaan u sheegaynaa inaynu ka hadlayno 9 markab oo ay soo iibsatay dawladda Itoobiya oo ku xiran biyaha badda magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti wali waxaan ku guda jirnaa arintii 9 markab ee Jamhuuriyadda Itoobiya soo iibsatay goordhowna waxaan idin daawasiin doonaa clips ku salaysan arintaasi iyo qaabka daafurka loogu sameeyay 9 markab iyo rag siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ka qayb galay arintaasi goobtani aan ku suganahay waa dekedda caalamiga ee magaalada Djibouti goobtani ayaa waxa ka qabsoomay munaasabad aad u ballaadhan oo ah mid lagu dabaaldegayay sanad guurada kontonaad ee ka soo wareegtay markii dalkeena Itoobiya uu badda ku yeeshay gaadiid sidoo kale munaasabadani ka qabsoontay dekedda caalamiga ee magaalada Djibouti ayaa waxay ahayd mid xadhiga looga jarayay maraakiib cusub oo gaaraysa 9 markab oo lagu xardhay magacyada 9 xarumood ee dawlad deegaaneedka dalkeena Itoobiya munaasabadani heerka sare ah ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa xukuumadda dalka Itoobiya iyo waliba xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti oo ay kamid ahaayeen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Haile Mariam Desalegn ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya mudane Damak Mokonnen sidoo kale dhankan kale waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele iyo waliba ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti waxa sidoo kale munaasabadani ka soo qayb galay madaxweynayaasha 9 dawlad deegaaneed ee dalkeena Itoobiya munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay mudane Axmed Tuusa oo ah marayaha wakaaladda maraakiibta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya isagoo mas'uuliyiintii waliba marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadani loogu dabaaldegay sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay xilligii dalkeena Itoobiya uu maraakiib ku yeeshay badda ayaa waxa uu warbixin dheer oo kaga hadlayay xilliyadii waliba marxaladihii kala duwanaa ee maraakiibta Itoobiya ay soo mareen oo uga warbixiyay mas'uuliyiintii waliba marti sharaftii ka soo qayb gashay Established in 1964 as a share company of Ethiopian government,
and the Taurus Investment Incorporated of an American private company with the initial capital of 50,000 birr, Ethiopia Shipping Line has been serving the nation for the last 15 years and has contributed its share to the development of our country. However, as compared to its half-century age, the recent service of the national carrier stands behind the current demand from its customers. This is partly because of the poor performance of our economy in the past two regions and the relatively low level of investment support given to the sector. During the Emperor regime, the country had invested in 8 very small-sized ships that have the total capacity of 59,858 deadweight tonnage, which is nearly equivalent to the size of the 2 new ships we are inaugurating today. sidoo kale munaasabadani ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ka mid ah wasiirka gaadiidka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Warqina Gabiyo madaxa dekedaha Djibouti mudane Abubakar Umar Hadi oo iyaguna si wada jira ugu hambaliyay sanad guuradani kontonaad iyo waliba maraakiibtan cusub ee xadhiga laga jaray waxa sidoo kale munaasabadani sida heerka sare loo soo agaasimay ka hadlay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Haile Mariam Desalegn oo tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay sanad guuradani kontonaad isla markaasina uu soo dhaweynayo maraakiibtan cusub oo qayb ka ah horumarada kala duwan ee uu ku talaabsaday dalkan Itoobiya waxana uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in maraakiibtan cusub ee sagaalka gaaraysa ay yihiin qorshayaasha xukuumadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay degsatay taasi oo ah maalgelinada kala duwan ay xukuumadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay sameynayso si guul looga gaaro horumarada kala duwan ee dalkan Itoobiya oo qorshaysan. We will grow when Djibouti, among others, grow. As our late great Prime Minister Meles Zenawi once said, we shall sink or swim together. Of course, we prefer to swim together. That's why Ethiopia champions regional economic integration and the value of mutual benefit. It is no secret that the relationship between the two countries is further strengthened by the fact that much of our foreign trade flows through the ports of Djibouti. As our economy registers grows, so does the size of our foreign trade. By the end of the current development planning period, we aim to raise the ratio of export trade to GDP from 6.7% in 2003 to 15.6% in Ethiopian calendar, and the ratio of import trade to GDP from 26.5% to 32%. This is obviously to the mutual advantage of the two sisterly countries, an assurance that the two countries are indeed swimming together. Ethiopia and Djibouti have put in place bilateral legal frameworks and modalities for facilitating the smooth flow of goods and services across borders on mutually beneficial terms and conditions. ugu dambeyntii ayaa waxa munaasabadani ka hadlay isla markaasina soo afmeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo madaxdii ka socotay dalka Itoobiya waliba marti sharaftii kale aad uga mahadceliyay sida ay uga soo qayb galeen waxana uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu sheegay in maraakiibtani cusub ee dalka Itoobiya ay soo iibsatay ay yihiin kuwa wax badan ka tari doona xiriirka ka dhaxeeya Itoobiya waliba Djibouti isla markaasina maraakiibtani ay noqonayaan kuwa horumar badan oo horseedi doono xukuumadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya waxana madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti oo hadalkiisa si wata uu sheegay in xiriirka Djibouti iyo Itoobiya ka dhaxeeya uu noqonayo mid si xoogsan doona. Le développement de l'Éthiopie doit tirer aussi le développement de Djibouti, surtout dans le domaine maritime, parce que les ports de Djibouti
le gouvernement de Djibouti doit investir. Investir pour faire face à la demande éthiopienne, pour monter en puissance dans la région et dans le monde. Pour cela, il faut que le planning, la planification de Djibouti soit conforme et en adéquation et en synergie avec waayahay intaa kadib weli waxaynu ku jirnaa arrintii dhaqaalaha sidaan la socono waxaa jira jamhuuriyaddii Soomaaliya la oran jiray waxa kadib qaran jabkii ama burburkii dawladdii dhexe waxaa ku dhacay arrimo badan oo xagga saameynta dhaqaalaha ah waxaa jira ama hore u jiray kolkii ay dawladdu jirtay sida mas'uuliyadka taariikhda ku hayno in ay jirtay wax isweydaarsi jamhuuriyadda Soomaaliya inay wadamada jaarka la ah ay wax isweydaarsan jireen iyadana wax ay uga iman jireen dhinaca Kenya ama Ethiopia oo kale xilliyada qaarkood ay iyaduna wax geyn jirtay sidii ay jabkii ama qaran jabkii u dhacay waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed inaysan wax dibadda ay u tallaabiyaan aysan jirin iyagoo haysta wax badan oo hodan ay ku yihiin tusaale haddaan u soo qaadano waxa kaliya maanta dadka Soomaaliyeed ay dhoofiyaan ama il u ah waxa kamid ah xoolaha nool xoolaha noolna badana waxaan ognahay wadamada carabta ayaa loo dhoofiyaa oo laba goor ayaa ayaguna xoogooga la dhoofiyaa xoolaha nool Djibouti oo ma dhoofino Kenya oo ma dhoofino Ethiopia oo ma dhoofino balse haddaan Ethiopia iyo Kenya soo qaato waxyaalo badan waxaa jiro ay noo soo dhoofiyaan oo dhaqaale badan ama ay kaga helaan yani lacag adag arrintaasi ayaanu doonaynaa bal in aynu daawadayaashayada aanu laftooda aynu bal yartusno xooga iyo cadadka dhaqaale ee ummadda Soomaaliyeed ka baxa halkaas oo aysan waxba iyagu aysan u maartay aysan uga iman xaga ama aysan u iibgeedin qodobkaas aan doonaynaa bal noo yar iftiimiso okay fahamtay okay haddaan marka in yar ka hadalno meelaha badankooda dadka horta dhaqaalaha qaata ee Soomaaliya xooga dhaqaalooda u gala waa dowladaha Kenya iyo Ethiopia Ethiopia dhaqaalaheeda waxaa lagu qadaraa ilaa 180 bilyan intay haystaan marka la eego Ethiopia markay dhaqaalahooda ka hadlayaan waxay yiraahdaan kofiga ama kaafiga la cabo wala flamarka dhaqaalaha wadanka iyo dahab ay leeyihiin waxa kale ku soo biiray oo horu jirin oo martabadaha hore soo galay qaadka waxa kale 2 bilyan ka helaan in ku dhow kafeega waxa kale ka helaan qaadkana in ku dhow bilyan haddana ka badneenba marka imika qaadkaasi ay leeyihiin waa lukeena dhaqaalaha badankooda ay hadda ku faanaan lacagtaas ay ka helaan waa lacagta Soomaaliya ka timaada ama dhulka Soomaaliya haysta noqoto ama qaybaha kale shanta Soomaaliya ha noqoto taa markii aan ku sameynay baaritaan badan waxaan ogaanay dhulkii Soomaaliya markii hore la isku oran jiray ama imika la yiraahdo Soomaaliya la yiraahdo 300 milyan lacag ah ayay Ethiopia sanadkiiba gala Djibouti waxaa ka heshaa 3 milyan oo dollar sanadkiiba wadan marka gaajisan oo baahan oo rafaadsan inta laga qaato dib kulli waa garanaysa waliba inta aan taal dhaxkelin oo aan dhamaystirin arrintan qaadka inta ku eka waxa way lacagtii dibadda soo diraayo dhan baa baxaysa gudaha galaysa Ethiopia ama Kenya galaysa waxa si dheer marka gudaha oo waliba aan ku sameynay baaritaan in dadkan awoodda aan haysan in lacagta qaadka aan ku cuni karin ay waliba xataa ilaa ay ku daartay cudurkii daaq qaadkuna ku baxay taamiiga ta gaari xataa dadkii miyiga laftooda markay awood waayeen ay bilaabeen inta gadi jiraan environmentally in qaad ku ibsadaan marka ay xaga u loofiyaan taasoo mid waxa kale oo jira in birihi wadanka yaalo dhanba inta la qaaday xaga la geeyo wadanka Ethiopia loo qaaday iyo Kenya loo qaado horta waxa soo dhan waxa kamid yahay waxba dhaqaalaha ee wadanka darsa gelinaysa waxaan ogahay imika Ethiopia inay samaysatay warshada sibirka oo laga sameeyo Dirdaba warshada sibirka soo baxana maanta waxa lagu soo faafiyay Soomaaliya iyo shanta Soomaaliya dhulka oran jiray guud ahaanba lagu soo faafiyay way gaareen meel wakiilba ka samaysteen
ama Jabuuti ha ahaado ama Hargeysa ama Muqdisho ha ahaado wakiil baa laga samaystay gaar ah kaas oo qaybinaya markaas halkaa markaa lacagtii marka sibirka Ethiopia gelaysa tii qaadkana Ethiopia gelaysa waxa kale ka bilaabay waliba iyagu inay khudraddiina tamaandadii waxyaalaha caadiga xataa ilaa baradhadii ay soo dhoofiyaan xataa waddanka keenaan waxa kale ku jirta balaanka saan ka warhayn anagu in Ethiopia imika dhisatay warshada ugu weyn Afrika ee ah warshada sokorta taasoo la dhisay gobolka ay leeyihiin xanfartu ee waqooyiga Ethiopia lacagta ku baxday warshadaasi weyn waa 571 milyan oo dollar lacagtana waxaa amaahiyey oo bixiyey dowladda Hindiya sida ay warar ku bixiyeen dowladda Ethiopia madaxdoodu waxa ay sheegeen in warshada ay ku dhoofin doonaan dowladaha dariska sida Soomaaliya oo kale halkaana marka dhaqaalihii ayaa lagu soo gelayaa oo laga qaadanaya markaas okay inta marka laga tago waxa ku dheero kaleeto waxa ku dhaafay ralaw warshada sibirka waxa soo dhoofisay waxa maalintii soo saartay 5 tan ay soo saartaa oo la diraal dhoofiya oo loo diraal dowladda dariska Soomaaliya okay inta marka laga tago waxa marka dowladda Ethiopia ay laftoodu ay dhaqaalaha ka heshaa surface wax loo yaqaan waa maxay waa diyaaradaha waxa la socnaa diyaaradaha marka inay ku soo xidho Soomaaliya Yurub ka imanayso inay ku soo xidho Yurub ku soo xidho Addis Ababa oo waddankii qabtaan qaarkoodna ay diyaaradooda airline ku ay xataa Soomaaliya gudaheeda ama Soomaaliya ma noqotay ay tagaan ama xataa Djibouti ba shanta Soomaaliyeed halkaana ay diyaaradoodu ay u kala daafaan si lacag u helaan dadka badankooda lacagta ka helayaan waa dadka Soomaalida sababtoo ah Soomaaliya diyaarad ay rasmi oo caalami ah international ma laha xagaas waa surface-ka oo ay ka helayso lacagta ka helayso Soomaaliya laga qaadanay waxaa ku soo noqonaya marka oo dhiman oo imika balaanka ay ku jirta Ethiopia in wax loo yaqaan hydroelectric power oo ah biyaha laga dhaliyo korontada ama leerka laga dhaliyo inay Soomaaliya ku talaasho halka lacag hesho imika already waxa ku bilowdaba Djibouti sala socdo Djibouti waa la gaarsiiyey waa marka la gaadhay sidaan baaritaan ku sameeyay anigu aan ku helinaa oo ay waliba World Bank ku sameeyeen baaritaan ku sameeyeen waxa ay ku charge gareeyaan kilowaatkiiba qiyaas ahaan $70 ku dhiganta meesha ay dadka Ethiopia gudaheeda deganna ay ku charge gareeyaan kilowaatkiiba eber dhibic 65 oo ka yar $1 ka yar meesha kan Djibouti joogaa oo $70 bixinayo halka kilowaat ka Ethiopia bixinaya hal eber dhibic 65 oo ka yar $1 hadda barnaamijka wada waxa weeye inay soo dhoofiyaan Soomaaliya inkastoo lagu lahaa waliba bixareyka in kale laga sameeyo xaggan iyo Suudaan xadudkeeda waxbay yimaadeen safaarada Ethiopia Soomaaliya xataa ku jirta lagu sheerkeena Kenya oo lacagtii ku soo dara taasna marka qayb kale oo iyada lafteeda ay dhaqaalaha keliyaan marka inta soo qaybood baan u kala qaaday dhaqaalaha okay haddii marka haddii isku duubo war haddii ninkii siyaasadii uu sidaa ku soconayo inuu badiba qaato wadda dhulkiina uu ku dhex jiro qusuuliyada meelba ka furtay maamulada maanta joogaan nin walba uu iska xadirinayo Addis Ababa uu tagayo ya haddana ay dhaqaalihii heerka gaarsiin yahay oo la doonayo dhaqaalaha inay wax walba qaataan waliba wax ku daran aan ilaaway xagga waxbarashada inay jaamacadooda geeyeen gudaha Soomaaliya oo lacag la keenaa halkaas shida Soomaalida jaamacad waa geeyeen halka lacag keenaa Kenya dhacda koonfurta Soomaaliya geeyay ay doonayaan ku faafiyaan kuwan xaggan geeyaan tasawid waxa kale ognahay marka badal boobay marka laga hadlayo aan ka harin wali in xeebta Soomaalida ee Kismaayo ay Soomaalida dhamaantood la socdaan wax ka dhacay oo ay ilaa imka Kenya ku xirsan tahay in dhinaca Kismaayo in ku dhow 10 kilomitir la siiyo halkaas la sheegay kamida meelaha gaaska iyo petroolka Afrika ugu badan ay ku jiraan oo ay doonayaan inay markaa qaataan waxyaaba la yaab kale ay ku doodayaan wax kamid ah xariiqinta u dhaxaysa ama agreementka u dhaxeeya Tanzania iyo Kenya waxay Kenya ictiraafsan tahay in lagu hado macnaha qawaaniinta caalamka ee hore ka Soomaaliya way diideen waxa anagu istifahan iyo saaxiibtinimo ba ku dhamaysanaa marka halka doonayaan marka xadgudub ku sameeyaan inkastoo sida la sheegay Soomaalida barnaamijka Soomaalida ay diideen arrintan noocaas marka arrimahaas ay kulli xagga siyaasadda iyo maarta dhaqaalaha ay ku baxadayaan
waayahay arrimaha dhibka aad ka hadashay run ahaantii waa arrimo aad iyo aad u murugo leh siyaasaddii iyo dhaqaalihii haddii isku xiran yihiin runtii caalamka waxaa haga waa siyaasadii dhaqaale ninkaas dhaqaala haysto siyaasaddiisuna cirkaasay maraysaa haddii markaa aynu weli anagoo ku guda jirna qaybtii dhaqaalaha aad ka hadashay warshadaad sibidhka aad ka hadashay quwadda korontada aad ka hadashay jaamacadihii iibgeyntii qudraddii iyo bagaashkii kale iyo jaadkii iyo waxa dhan waad ka hadashay ma la oran karayaa markaasi dadka Soomaaliyeed ama de weli damiirkoogu nool yahay ama dareensan qulqulatooyinkan ama waxyaabahan socda way isku dayi karayaan in ay wajahaan arrintaasi mase dhici karaysaa in ay helaan quwad kale oo arrintani maadaama aysan jirin jumhuuriyad yani aysan jirin awood dowladeed oo maanta oo Soomaaliyeed aysan jirin oonu ognahay qaabka ay u dhisan tahay ama sida ay tahay xaaladeedana ma la oran karayaa dadka Soomaaliyeed ee damiirkooda weli nool yahay ee arkaya waxaan dhacaya way sameyn karayaan inay ka hortagaan baaxadaasi ama awooddaasi soo yani fidaysa u soo fidaysa xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeed ma taasi maxaad u malayn karaysaa arrintaasi rajadeeda intay leegtahay okay haddaan rajada ku soo noqdo waxa weeye horta Ethiopia siisaba sala socotaba waa qowmiyad tagay waa Gabriel waa Gambala waxa weeye waa Oromo waa Tigray waa Axmaaro waa qowmiyad tagay marka iyagu dad isku mid ah maaha dad isku diina maaha dad isku dhaqan maaha isku af maaha Soomaaliya laakiin waxa way sidaba shanta Soomaaliya marka meel walba laga hadlo shanta Soomaaliya ay qaybiyeen dowladahan inay ku qaybiyo wax loo yaqaano waa isku af waa isku diin waa isku qowmiyad laba dagaal baa la galay Ethiopia mid 46kii waa midna waxa 17kii labada baa la jibiyey taasoo tusay markaasi dadkooda tashadaan oo israacaan oo walaaloobaan in la iska celin karayo waxaan filayaa anigu in nimankana haddii aan dadka Soomaaliya aan tashanin aanay Ethiopia iyo Kenya midna hareyn waxaa ku tusaale ku daliila in Kenya maanta markii qaadatay badii ay qaadatay dhulkii Soomaalida ay waliba badii Kismaayo doonaysa inay qaadato ku dayso iyo Ethiopia marka ay agtay kana ya yani iyagoo dhulkii qaatay hadda inay waliba leeyihiin dadkayga Ethiopia degan Axmaarada ayaanu shabeelle dejinin doonayna in beeraha shabeelle qaadano ee ku yaalla webiyada meelahaas marka arkaysaa nimankii inaanay samrin laakiin weli ku socdaan haddii marka dadku ay isfahmi waayaan oo ay walaaltinimada iyo isfahanka iyo walaalnimada soo celin waayaan waxaa dhacaysa markaa mar walba in la kala jabiyo ayaga oo la isku dilo waxaa la socotay shirkii ugu dambeeyey qowmiyadaha ka dhacay meelaha jijiga waad arkaysa waxay ka dhacay TV qof walba ka daawanay Soomaaliya waxaa la soo keenay meesha garoonka weyn ee ku yaalla jijiga ayaa loo geliyay carruur badan oo Soomaaliyeed dharkii xabashada ciyaaraha lagu ciyaartii ku ciyaaray Axmaarada muusigooda loo garaacay madaxda Soomaaliya ka tilmaamulkana nin walba waxaa ka fadhiistay Ethiopia saamkaan loo garaacay marka halkaad arkaysaa in kii la gumaysanayay inta Soomaaliya u timi weliba ay saam ku garaacayso isagoo dharkii calankii kii gumaysanaya watantana saamka loo garaacayo marka kulli waxaa ficlan lahayd dadku inay wax fahmaan oo damiirkooda ay kiciyaan oo ay desfahmaan aad baad mahadsan tahay weli waxaynu guda jirnaa barnaamijkeenii inoo soo taxnaa aynu kaga hadlaynay 9 markab ee ay soo iibsatay dowladda Ethiopia 9 markab oo ku xiran biyaha magaalada Djibouti ee dalka Djibouti su'aasha kale aan doonayna ku weydiiyo in badan dadka Soomaaliyeed qodooda ee TV-yada ka daawaday barnaamijkaasi ama maraakiibtaasi iyo daafurkooda ay isweydiinayaan ayaa waxay tahay dowladda Djibouti siyaasad ahaan maxay kala socotaa arrimahan maraakiibtan iyo halka ay ku wajahan yihiin okay markii hore ku soo noqday madaxweynaha Djibouti arrimaha bulshada Soomaaliya xoog uga qayb qaatay runtii waa nin daneenaya in dowladda Soomaaliya soo noqoto runtii aad iyo aad buu shir badan ugu qabtay Djibouti ciidamada uu diray waxay awoodiisa laakiin markuu waddanku yahay waddan tabar yar oo aan babacdii kan waddan xoog weyn ama awood uu kula hadlo isagii ma hayo ama arrimo kale hortaagan waana ku sheegay kuuri dekedaha Laamo iyo Berbera iyo Port Sudan iyo Djibouti soo bardhiga ninkii ku doodaya tan ku qaado taantiga marka ay naftoodii dhaqaale kale ma haystaan Djibouti dhaqaalaha badankooda waxa kale dekeda Djibouti ku taala ugu weyn hadda wax loo yaqaan doorale waxa gacanta ku haysa Dubai Dubai waxa dowladda Djibouti ka heshay lacag 40 milyan lacag dekeda lafteeda alaabta badanka ka baxdaana waa alaab Ethiopia ku xiran oo tagta marka ay naftooda dhaqaalahooda laflabarkooda ku xiran yahay Ethiopia marka isagoo ninkii fahansan Dubai yiraahdo dhaqaalaha suugaaya meel kale loo wareejin karo markaas marka isaga ma hadli karo waana ku hadlay lahaa dhaqaaluhu
waxyaabaha qofka doonaya lagu curyaamiyo marka isaga dhaqaalihii iyo awooddii laga awood badan yahay iyo dhaqaalihii lagu curyaaminaya labadii loo isticmaalaysay iyo soomaalida kala jajaban oo meel kale la aadi karo haddii iska u diido saddex qodob markii la hor dhageysto markaa uu diidi kari waayey sida la socotana waxa la saxay markaa 30 sanadood inay maraakiibta Djibouti joogaan oo la shaqeeyaan waxaa u adeegsanayay ra-iisul wasaaraha Ethiopiana waxa ka mid ahayd Ethiopia iyo Djibouti waa walaalo أنا ما قرنا دي مال إثيوبيا جبوتي كنا وتولى إثيوبيا جبوتي حلوة يعني بريغ هذا فرنش سوالي لام بيو بحيان بريغ هذا قلدي لوك سوالي قبيس لكن ده ما قرنا مالك هو وين ويا marka waxa leedahay dawladda Djibouti waxay ilaashanaysaa dhaqaalaheedaas ilaashanaysaa maadaama ay dhaqaalaha ugu badan u dekada ka soo xaroodo wayay xagga siyaasadda ma la oran karayaa dawladda Djibouti maadaama ay ka tirsan tahay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga oo ku dhaqan gobolka Hiiraan qaasatan degmada Beledweyne iyo Buulo Bardana waxigeeda dawladda Djibouti qodeeda way ka dharagsan tahay arrimahani marka laga hadlayo xagga yani siyaasadda marka laga hadlayo balse qodeedan doonaynin inay waxyaabo qaarkood ay safar gashato markaanu ka niman xagga dhaqaalaha ma dawladda Djibouti maadaama ay ciidanka joogaan dalka Soomaaliya oo nabad ilaalin ah ma la oran karayaa dawladda Djibouti waxay awood u leedahay in ay qaramada midoobay iyo caalamka tunka weyn ay kala arintan kala xaajoto oo ama ay u soo bandhigto taas sidoo aragtaa waxa weeyaan saan ku sheegay horta Djibouti waa dawladda yarna bariga hore wax ku dhisnaan jirtay Soomaaliya awoodida marka qofkii uu Soomaaliya awoodida waayo halka waxa ka mid ah waxsanaan fara badan waa la soconaa haddii aad taariikh ku noqoto bariga hore Djibouti barigeeda hore bariga waxa loo yaqaan magac loo yaqaan French Soomaaliya loo jeedo markii Soomaalida oo ololeysay oo dagaal badan galay oo Maxamed Xarbi iyo raggaas ay dagaal galeen dawladda Soomaaliya aad u caawisay ay markaa Faransiisku siyaasadda bedelay waa yar ararnaya oo taariikh noqonaya markaa Faransiisku markaa wuxuu bixiyay 1960 markii French Soomaaliland ahayd waxa loo bixiyay markaasi afar ciise oo dawladda magaca Soomaaliya ka saara meesha oo ku magacaabay laba qabiil oo meesha degan oo Canfar iyo Ciise ah kadibna markaas wuxuu magacaabay ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay nin la yaqaan على عارف وسوي عنفرة وجدوا مركز على هيد فرانسيسكو وحا وإنجليز كده بيعو إن جيبوتي مركز دنباء حرمنا قانا لقوا رجيم كده إثيوبيا لكن إثيوبيا صوماليا وحتى جبت حزب الله يقان FCLC أو صوماليا أنت جبت حزب أي وعوتينها مركز حزب الله سؤال ديانا مجري وقوة إسنا يدور ده وتغيير سيداديس أي كبقى مركزي حدي عين كاسبين صوماليا سوكشوا إذا جيبوتي كمركزي وصوماليا عبر العصرة taasi markaa u baqay markaa ayagu haddii ay wareejiyaan in Soomaaliya soo gasho meesha marka mar walba balankoodu aynkaas u ahaa marka isagu arrintan aad weydiisana madaxweynaha Djibouti wuu fahansan yahay laakiin dee awooddii Soomaaliya ee uu ku gartami lahaa ama uu hadallada qaarkood ku odhan lahaa meeshii ma taalo waayahay haddii aan taa intaa kaga gudubno waxaa jiro wax loo yaqaano heshiiska la yiraahdo Ito Kenya ama heshiisyo ay wada galeen dawladda Kenya iyo dawladda Ethiopia heshiisyadaasi waxay soo taxnaayeen tan iyo 1961 mar bay wada galeen 1967 mar bay wada galeen 1984 mar bay wada galeen 1988 mar bay wada galeen heshiisyadaasi waxa uu gundhig u ah siyaasadda iyo amniga iyo xuduudda military ee labada wadan waxayna ku wajahan tahay dadyooga ay kala haystaan ee Soomaali galbeed iyo NFD siyaasaddaasi ama heshiisyadaasi Ito Kenya waa kuwa caalami oo meel walba laga heli karayo waxaa jira markaa maadaama ay curyaamin siyaasadeed iyo mid dhaqan iyo dhaqaale iyo mid nololeed lagu hayo dadyooga aynu soo sheegnay NFD iyo Soomaali galbeed maxaad u aragtaa maanta oo aynu ku noolnahay duni lagu tilmaamay inay daabiyad gebigeedaba tahay ama global village waxa afkala lagu yiraahdo maxaad u aragtaa in ummadda Soomaaliyeed ee daafaha dunida maanta ku baahday ee qaaradaha shanta qaaradood ku nool in ay kaga hortagi karayaan heshiiskaasi Ito Kenya ee haddana imika la filayo inuu dhawaan dhici doono maxaad u malayn karaysaa arrintaasi iyadoo la kaashanayo qurbajooga Soomaalida iyo aqoon-yahanka iyo inta damiirka la wadan gudihiisa ku nool iyo cid alla cid diyaar u ah inay arrintaas ka hortagto arrintaasi maxaad u malayn karaysaa in laga hortagi karayo Ito Kenya heshiisyadaasi ay mar walba ku wajahan labada deegaan soo sheegnay horta waa soo sheegtay oo uu jira heshiiskaasi aad sheegtay oo uu jira oo heshiis ay kala galeen dawladda Ethiopia iyo Kenya laakiin waxa u sabab ahaa markii ay Soomaalidu ay quwad lahayd hore oo ay wada socdeen marka waxay dareemeen in haddii Soomaalidu iskaashato oo tagto aanay qolo kale caabin karin
sidaas markaa keentay markaas labadoodiiba inay yidhahdaan iskaashano nimankan ma caabin karna waa inay farabadan yihiin dhul badanna way degan yihiin hadday markaa lagu soo dhaqaaqaan kii ku dhaqaaqaan marka kale kaga heliyo laakiin haddii weliba taas aan taa weliba ku siiyo example yar oo beri ay talagarayaan inay heshiiskaasi ay hataa wax ka qabtaan dagaalkii waad la socotaa 1970 barigii Ethiopia iyo Soomaaliya dagaalameen waxaa dacwada Kenya soo gashay dagaalkii markii dagaalka soo gasho markaasi waxaa ka ahayd maayarka magaalada Nairobi inuu u dhalay ninkii la oran jiray Kukuya waxaa loo jiray Kenyatta inantiisi markay arkeen quwaddii ay Soomaaliya leedahay meesha maras durba iyagoo doonayay markaa inay markaa ay wax ku daraan ciidamada ayay markiiba baqitaan ay bilaabeen oo ilaa anagu inuu geli karin dagaalka waqtiga xadirka markaa sidaad arkaysidba waxaa labadaba ay u heshiiyeen in dhulka Soomaalida ay haystaan oo dadka Soomaalida ay gumaystaan oo haddii lagu soo dhaaqana ay iska kaashadaan oo labadaba ay caawiyaan waa colaad markaa soo taagan oo labada dowladood ay kiristaanka tirsanayaan doonayaan dadka muslimka inay iska eliyaan waayahay weli waxaanu ku guda jirnaa siyaasaddii geeska Afrika waxaynu ognahay jamhuuriyadda Soomaaliya imika waxaa ka jira wax loo yaqaano jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa jira maamul goboleedyo hore u dhisnaa oo iskood yani isu abaabulay iyo kuwa inta hadda ay dowladdan la aqoonsaday oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hoggaanka u hayo kuwa iyagana dib loo dhisay federaalku annagoo doonayna inaan in yar ka soo qaadano waxaan oran karaynaa dad badan oo Soomaaliyeed waxay ku doodayaan federaalku dad kala qoomiyada ah ama kala diin ama kala midab ama kala afkaar ah ayuu federaalku qaadan karay laakiin nin reer miyi ah oo doonaya inuu hogasha raaco oo marna gobol Hiblaayo geelisa geysto marna gobol Hiblaayo geelisa geysto ma dhici karaysa in federaal loo sameeyo waayo federaalku dhul iyo deegaan iyo xariiq buu leeyahay maxaad u malayn karaysaa xilligan maanta la jooga federaalkan ama gobolaysigani wadankii ku soo badanayo iyadoo mararka qaarkood ay dadku inay ayagoo ka tashadaan oo gobol ahaan iyo degmo ahaan isu maamulaan ay qurux badan tahay laakiin haddana siyaasadaha imika socda aynu arkayno ama farshaxanada imika socda waxay u muuqdaan kuwo يعني لوجو خلق قوبيو دتك الصوماليين مر والبا أما كاشية دقالي دقان كدحية أما درين وذا قال هان لها دتكاس إن لوجو خلق قوبيو تاسي يد السيدو أركتا ديجو صوير قوبيو horta maamul goboleedka siiso dadku waxay u arkaan inuu keenay dowladdii hore militariga ahayd oo ahayd dowlad centralized ah oo dadka aad u cadaan jirtay dhibaato badan u keeni jirtay marka dagaalkii sokay bilaabmay kadib waxay isku badayeen dadku markaa balinay ismaamul ahaan ay samaystaan laakiin sida la socdo taariikhiyan wax horta maamul ah oo jiray waxaa jira laba gobol oo isu tagay waxaa jira keliya 1960kii goboladii lagu yaqaano waqooyiga ama Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya unbaa horta jiray wax rasmi ah oo iyagu laba gobol oo isku biir ah intan kale imka dee aad maqlaysaa fara badani waxa weeyaan dee waa dad un dee dagaalka sokeeye kadib un dabcan qof walba meeshiisii maamusho oo arrimahan qabailka iyo dowladdii markaa dee militariga ahayd oo aan hab cadaalad u dhaqmaynin caradii dadka ay qaarkood ka cadhoodeen ama cadaalad darrada ama caburinta ha ahaatee qof walba isku dayin meeshiisa uu maamusho laakiin saad u sheegayso waxa weeyaan arrimaha noocaas haddii sii ballaadhan oo sii socdaan waxay horyaaminaysaa quwaddii Soomaalida marka inkastoo ay u baahan tahay in la wada hadlo oo la isfahmo haddana kolleyba quwadda Soomaalida wax ku jirtaa in macnaha dee wixii danta ku jirto la eego waxaa loo yaqaana federaalka faraha badanna dadka aan isku afka ahayn isku diinta ahayn badan laba ku wanaagsan yahay oo taqaana waddanka loo yaqaano Switzerland qayb baa jirta Talyaanigu dego iyo qayb Faransiisku dego iyo qayb Jarmalku dego waxa ay federaalku samaystaan waxa weeye qolo walba afkeeda ku hadashaa maamulkeeda leedahay Switzerland baa leedahay Ethiopia waa waxay sheeganaysaa qowmiyado kala duwan oo kala afa marka inay dowladdii u dhaxayso laakiin intii kale ay maamulkooda qaataan laakiin Soomaalida waa dad isku diina oo isku afa oo maartay isku aragti ah marka kolleyba anigu u malayn maayo in wax habeeraatee loo baahan yahay qoqwa meesha jiraan gobol walba waxaa jira abti iyo adeer isdhex degan haddii la kala jira talabtiisa dee qaarna xaggaas u raaci qaarna xaggaas u raaci dadkii gobollada waa isku dhex jiraayo waa la isku qasan yahay hataa si loo kala saari karo waa adkaanaysaa marka kolley anigu arkaan waxaa u arkaa inuu yahay mid federaalada maqashiisiba mid ku fiican maxaa la dhahaa dowladaha kale afka ah laakiin waxaa imika jirta sida u socotaba in baryahan dambe Turkiga heshiisiinayay Somaliland iyo Soomaaliya oo Soomaaliya ku doodayso 60kii baan la tagnay dowlad meesha cadaalad ma helin kuwaasna imika kulli heshiiskii uu socdaayo dib baan isu iman doonaa waa qayb kulli dowladdu ay wado imika heshiiso laakiin inta kale marka la eego guud ahaan iyo Soomaalidaba waxaa la baahan lahaa inay isfahmaan oo ay wada hadlaan waayahay haddaan intaa kaga gudubno waxaan doonaynaa inaan dib u xasuusino daawadayaashada imika nagu soo biiray
waxaynu dhexda kaga jirnaa barnaamijkeennii dhabka hadal ee aad alaaba inta badan nagala socotaan tv-ga caalamiga ee Kalson TV. barnaamijkan maanta qaybta aynu kaga hadlayno xubinteena waxaa la yidhahdaa sagaalka markab ee dowladda Itoobiya soo iibsatay iyo saameynta ay ku leedahay geeska Afrika. waxaynu u gudbaynaa qaybtii gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay. saad la socota mudane aadan waxaa jira dad badan oo aqoon-yahaniina Soomaaliyeed oo dunida ku kala nool. waxaan iminka aynu ka hadlaynay ee siyaasad iyo dhaqaale iyo taariikhba dad asaagooda ayaa wada. dadkaasi aqoon-yahanka ee Soomaaliyeed ama siyaasiga ee caalamka ku nool waxaa jiro in ay laba nooc inta badan aad moodid iminka inay u kala qaybsameen. qayb waxaad moodaa in cabsi iyo ay la habranayaan oo aysan hadli karaynin hadduu waddan gudihiisu joogo iyo hadduu dibadda joogaba, oo mar walba ka baqanayo in hadalka saxda ah ilaa waxa weeye ducufnimadu diinteenna samaawiga ah xataa waxayna faraysaa qofka inuu qalbigiisa quweeyo oo uu qofku noqdo qof adag. ducufnimaduna qofka islaamka waa lagala dagaalamay oo waxa weeyaan waa wax aada u liidata. marka ninka siyaasiga ah ee dowladihii Soomaaliya soo maray ilaa 60kii ka soo shaqeeyay caalamka la soo biyacabayo yani meelo badan ka soo shaqeeyay ama safiirro soo ahaa ama waxaa jiro rag professor macallimiin oo jaamacadaha caalamka wax ka dhigaa jira caalamku ka hibaysto oo hal door ah oo ummadda Soomaaliyeed hiigsato. raggaasi iyo in badan oo kale oo waliba dhalinyar iyo haweenba leh oo maxaa u diiday in ay ka hortagaan ama ay ka hadlaan dibidaabyada iyo hagardaamada lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee maalinba nin gobol ama deegaan lagu gowracayo. maxaa u diiday in ay sida ummadaha kale ee caalamiga ah inay doodaan, inay TV-yada soo horfaristaan, inay ka qayb galaan doodaha caalamiga, inay mudaharaad sameeyaan, inay caalamka tusaan dhulkoogii iyo dadkoogii in la barakiciyay oo la dhalan rogay oo dhulkoogii sida lagu qaato oo badoodina lagu socdo. maxaa u diiday oo aamusiyay dadkaasi inkastoon aan ka soo booday in qolo kalena ay jirto qolo iska ogolaatayba waxa loo yaqaano midiidin oo ay wax walba iska ogolaadaan. kuwaasi inta badan waxay u badan yihiin kuwa dhulka jooga ama rajada kale inay wadankii wax ka qabtaan. qolada midiidinta ee ogolaaday wax waliba way badan yihiin maanta. qolana waa qolada aan ku sheegay oo ku leeyahay waa kuwan aamusan ee aanan hadlaynin ee isha uu ka eegaya. maxaad marka u malayn karaysaa waxa ugu muhiimsan ee dadka la habranayaan ama ay la damqan laayihiin? maxaad u malayn karaysaa arrintaas? horta waxa weeye marka horeysa weeyaan saan ku sheegay dadka Soomaalidu ama koonfur ama qoyaadane waxa ku jirta in la heshiisiyo oo la siimaado oo la wada hadlo. waxaan ku sheegay lahayn ka heshiis baa kulli socda oo Turkiga laga hadlayo. macnaha waxa weeyaan dadka markay isfahmaan oo dowlad quwad leh la samaysto waxaan ogaanayaa marka dadka dad iska celiya dowladda dariska oo hadhowna ay Djibouti ku soo abrato. haddii taa la waayo qolo walba dee waxaa noqonaysaa qolo baalasan oo dhinac kale looga faa'iidsanayo. dadka kale arkaalista aan hadlayna waxaa moodaa waxaa loo yaqaan dictatorshipka inay Afrika ku badan tahay oo matalan aniga caynka qofka in dimuqraadiyadda uu labada dhinac ka hadlo qofka ra'yigiisa xorta u dhibto Afrika ku yartahay. dadka badankooda markaa waxbay ku hadlayaan marka dadka waxaa leeyahay waxaan inuu raaca joojiyo waxaas. dadka wax moodaa markaa dameerkii inuu ka baaba'ay ku yaraaday. laakiin qof walba waxa habboon in wadaniyada iyo dalka iyo dadka dantiisa lagu fikiro oo aan qof kale wuxuu yidhi aan la raacin laakiin la raaco wax xaqa wuxuu yahay. waya kuwaasi waa kuwa waddan gudihiisa jooga oo baqdinta ay hayso. maxaa aamusiyo kuwa dibadaha ku nool ee haysta xorriyadda iyo wax walba haysta? maxaad u malayn karaysaa kuwa ayaga adoo barnaamijkii inkastoo uu gabagabaya soo koobaya? wallahi waxaan kala qaybsanaanta faraha badan Soomaaliya taalla uma dhinac ka raacayba. laakiin dadka qaybsanaanta lafteeda haddii aanay iyagu u kicin wax joogsanaya maade sidaa usii socda dee maalin walba usii sarif maayo gobol buu sarif maayo usii sarif maayo. maanta dadku arkaysaa inay khatiyaanka taagan yihiin waxaan soconaya. waxaa loo baahay xalka in dadku keenaan Soomaalidu wadhaadaan waryaar aan heshiino oo dadka daliska aan iska celino. haddii la heshiin waayana dowladda wax ku dambeynaya on dowladaha khaliijka maarata yaryar aan awood lahayn Iiraan ka baqaysa way ma noqonaysaa dhow dowladaan awood lahayn kala qubnaanna waxaad ka quustaa khaliijka mid يعني ودك ريال الشيعة سنية عندك أوفر بدن الشيعة ذو ويرتي ما الشيعة بك حوين سنية حيكون حوين تاي ما هو شو تجد يمكن إيران هو شو تجد ويكون حوين تحرم با كل مسنية غير سمينا أود بلا مانت بس الصومالي هذه أي شو تجد وين دمان تود بقوس حوت شو وين ولا يسوي وين وحنا بنقول كوا خليج كلا قوم وإيران كبقى يقول
sidan dee Ethiopia ugu baqayn Kenya ugu baqayn ugu baqayn aad buu mahadsan yahay kaasi waxa weeyaan waa aadan jaamac kaahin aqoon-yahan Soomaaliyeed oo aan ka wareysanaynay arrimaha ku saleysan sagaalka markab iyo saameynta ay geeska Afrika ku leeyihiin barnaamijku waxaa idin daadahay anigoo Faysal Cabdullaahi Abrone xagga farsamada waxaa aad nooga caawiyay Master Cadaawe inta aan ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah dhabka hadal qaybtiisa dambe waxaanu idin leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh